الجوزي رحمه الله dadka salaada tukanaya shan buu kala qaado wuxuu yiri qolo salaada ay tukato adduunkan iyo aakhira ilaahay waa ku cadaabi buu yiri waa kuwa salaada marna way tukadaan marna way ka boodaan marna way tukadaan marna way ka boodaan awqadeediyo iyo jawaamicdana kuma ilaaliyaan buu yiri fawaylun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun salaada way tukadaan laakiin awqadeeda xilligii rabaan bay tukadaan kuwa adduunkan iyo aakhira salaadooda ilaahay waa ku cadaabaya balay qolada labaad waa qoladee salaada way tukadaan jamacana way ku ilaaliyaan masaajidana way yimaadaan laakiin qalbigoodu xaadir ma aha min albidaaya ila nihaaya salaadoodu waa sahwi kuwana salaadoodu ilaahay bay hortaallaa hadduu doono ilaahay waa ku cadaabi haddii uu doono ilaahay waa ugu naxariisan bay culimadu yidhaahdeen salaada saddexaad waxa weeyaan uu tukanaya salaada jamciya jamaacadii masjidku ku ilaalinaya laakiin markuu salaada yimaadana wuxuu bilaabaya jihaad buu bilaabaya qalbigiisii buu shaydaanku la tegaya deedna uu ka soo celinaya haddana uu la tegaya uu ka soo celinaya ka salaada intuu la yimideen ilaahay baa u qorayo ka aqbalaya inta ka dhimana ilaahay waa ka cafinaya baa leeyahay salaada saddexaadna waa salaada maaragtaani awliyada istaciinu bis-sabri was-salaa waa kuwa maaragtaani xawaa'ijtooda baahida ay leeyihiin markay arrin ay la soo daristo waxay leeyihiin salaad baan ku ordayaa hadday ciideeda iyo dayaxa isbedel ku dhaco salaad baa loo jideeyay hadday abaari ay timaado salaad baa loo jideeyay hadday cabsoodaan salaad baa loo jideeyay hadday masiiba ku dhacdo salaad baa loo jideeyay hadday muraad iyo xaaje yeeshaan salaad baa loo jideeyay hadday arrin khayr iyo shar inay u leedahay kala saari waayaan salaat al-istikhara loo jideeyay istaciinu bis-sabri was-salaa duulka afraad waa duulkee xawaa'ijtooda adduunyadana ay leeyihiin waxay muraad leeyihiin hebel iyo heblaaya noogu sheeg ma yidhaahdaane masaajidka intay soo galaan bay baahidooda ilaahay u sheegtaan salaada shanaadna waa salaadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa salaadu nabigu yidhi arixnaa biha yaa bilaal kacoo salaada inoogu raaxee ku raaxaysanne xubbiba ilayhi min addunya halaath adduunka waxa yaala saddexba aniga la jeclaysiiyey buu rasuulku yidhi waxaa la jeclaysiiyey atiibu waxa wixii uduge udgoon والنساء يا هوينكنا ولا جعليسيي وجعلت قرة عيني في الصلاة halka indhahayga iyo qalbigaygu ku qaboobayana salaada laga yeelay buu nabigu kaleey salaatu wasalaam marka saxaabada rasuulku salaadaas ay barteen iyaku in salaada ku raaxaystaan in salaadu ay u noqoto meel markay salaada ay xidhaan adduunyada ay ka tagaan nin culimadii salafka kamid aha ayaa mar alle markuu salaada xidho thabit al-bunani baa loo jiraa abu muslim rahimahullah waxa lagu yiri salaadana tukanaysid anaku waan laanay saad ku heshaadigu salaadan mar alle markuu salaada tukanay ilmada ka daadanaysa وحيد كابت من أجل الصلاة ل20 سنة وتنعمت بها 20 سنة بويري صلاة الروح ديدا بدن كيغا حقيقة ديدا إنان قارو لباتن سنة أيان الصوت تبعي بالوصول دالي هذا لباتن سنة وكل راح يستابوا لصلاة داس كيفية الصلاة أدوتو كتنوشيك بالغيري ويقول إنما يهونو صفقة مركان قلبوا لي إمامك عن قداشي سيستاقين صلاة حرناي وحان استحضار أن كسو حاضر صلاة قلبي قيقا يوم يقوم الناس لرب العالمين وحان كسو قالا صفقا مسجد كأنجو قينو يهكي محشر كبرك قيامة هل كاسر مركا كحدابو لصلاة إنان إلهي ارتاقين هيبا صو حاضرية اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إلهي واحد عابداسي واحد أديكو هادو جيدو أركيسو حداد أديكو أركين إلهي جل وعلا يساقاكو أركايا وحولي مركا وحان كفكرا مركا صلاة دحديدة كي حق مدقيقي حقي وملايكتو أي قادون لي إلهي باكو يري وحسابتا لغوغو يري صدقا هدانا كي بدحديقي حقي أولا قادي كي يقدم بيي أولا قادي كي يقهر ريي أولا قادي waxay salaadu ii dhamaata aniga oo marka u dambaysa qalbigayga ku soo xaadirsaday maxsharkii banka qiyaamaha kaliga baa ku haray hadda ilaahay ku yeeri doonaaye maxaad ilaahay kala kulmi doontaa dareenka iyo shucuurta ma salaadeeda ku dhameystaa buu yiri ay raisli ninkuna dareenka ku dhameystaa masaajid anagu habeen ku tukanayna buu imaamkii salaat al-isha واما ان كان من المكذبين الضالين مساجد قدام بعد امين وركعت دي لبا صلاه العشاء انا واكو جرا صفقه هره
salaadii markii laga baxay buu imaamku yidhi war aamiinta labada halkeed ka keenteen wallaahi mid xagga unbaa bilaabo walla bilaawnu midhaan walla waa ku darray laa ilaaha ila allah markaa mid baa yidhi sheekh kuwaas wayba qayliyeene waxa maanta muslimiin ilaa man raxima rabbii masaajidda ku tukanayoo dhan way naga dhex qayliin mooyaane adduunyaduye kulligay gudaha ka wada hadallaa buu yidhi والإنابة إلى دار الخلود من أسباب الهداية إنه قلبي قفك النور الهداية أي دكتي وحال لقو قرتابو يري رسولك دار توارتانك وصاحبك إلا لقو بين أيو أيو قفك مؤمنك قلبي سجع العذاب رسولك والاستعداد للموت قبل نزوله والاستعداد للموت قبل نزوله على مدى صدح هذا مؤمنك لقو قرتا وحاكمد يري رسولك inta qofka muuminka ajashu aysan ku iman asagaa dhimashada u diyaar man mina laa yakraha almowt dadka maanta muslimiinta nolosha iyo geerida noloshaan jecel lahay ashyaada materiyaalka iyo lacagta iyo camalka saalixa qalbigeennu hadday dhibaata ay nagu timaado wuxuu u iilanayaa lacagtu u iilanaya wuxuu leeyahay lacag haddaad hayso mashaakilka way xallismaysaa khaaliq iyo makhluuqana maanta ummaddu way kala garan laadahayba khaaliq iyo makhluuq ilaahay ma doonayo qalbiga meel kale inuu u jeesto ilaa xaggiisa mooyaane waa meesha ilaahay addoonka uu ka fiiriya buu rasuulku yidhi qalbigu calayna an nuxsina منظر الرحمن منا إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولله المثل الأعلى أو شقد هذه كيم دي هذا قولك هردد هذا قلت ما دحاس كذي ونكر ولا فدي كور ولله المثل الأعلى هل كإلهي مجعله من الربو إن لقوا أرك جعيلك لا يعبسك لا iyo rajo kale iyo baryo kale ilaa baryadiisa iyo cabsidiisa mooyaane waa xubinta keliya jirka la sheegay inay keliya tahay alqalb gacmuhu waa labo luguhu waa labo indhuhu waa labo sanku waa labo dabnuhu waa labo dhaguhu waa labo u fiirso keliyuhu waa labo garbuhu waa labo bawdadu waa labo laakiin qalbigu waa mid keliya maxaa qalbiga mid looga dhigay waa xubinta keliya jirka bini aadamka maamusha buu rasuulku yidhi idaa saluxat صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب والنبي يقول ألا وهي القلب حبين باكو جرت جرك بني آدمك هدي حقاك جرك ودن با حقاقي هدي باناتنا جرك ودن با بانان تاسنا وقلبك أبو النبي يقول هدو قلبك حقاقو قلبك معوكو حقاقيا وإلهي معرفة ديسا هدي قلبك معرفة إلهي أي دكتو حبنها بني آدمك وحي نقنيان حبنا مرنا إلهي عن عسيان كيسا كدعي marna ilaahay inay caasiyaan way adkaan maadaama xubintaasi maanta ay bukootay indhaheenni waxay rabaan bay eegayaan dhagaheenni waxay maqlaan bay dhegaysanayaan gacmaheenni waxay rabaan bay qabanayaan lugaheenni meeshay rabaan bay aadayaan dhaqaalaheenni meeshaan rabnaa ku bixinaynaa hadalkeennii meesha waxaan doonaan ku hadlaynaa waxaan doona xasan albasri raximahullah ayaa yidhi 30 sano maan qoslin 40 sanana maan kaftamin waxaan soo gaadhay rag iyo aqwaam waxaan soo gaadhay aan markaan la joogo aan isku malaynayay inaan anigu tuugahan isku malaynayay buu yidhi waa imaamkee waa khayru taabiciin weeyaan waa caalimkii taabiciinta ugu cilmi badnaa weeyaan waxa hadalkaa leh 30 sano maan qoslin buu yidhi 40 sanana hadal kaftama igama soo bixin waxaan soo gaadhay aqwaam markaan la joogan agtooda joogana anigu aan isku malaynaya inaan ahay tuug waa xasan albasri ninka sadaaqay hadday jirka xubintaa hadday hagaagto carabkaagu uu hagaagi maqalkaagu uu hagaagi hadalkaagu uu toosi ficilkaagu uu toosi calooshaada xaaraan ku dhici mayso gacantaadu maxaarimta taaban mayso lugtaaduna meelu ilaahay ka raalli ahayn oo loo isticmaali maayo waxaan fahmi laanahay maanta ixfad illaaha yaxfadka ixfad illaaha tajidhu tujaahaka ilaahay amarkiisa ilaali adiga ilaahay baa ku ilaalin
nin culimmadii salafka ka mid ahaa 120 jir buu noqday daadiisa ayuu gaaray tiinuhuna ma cadaanin waa 120 jir 20 jirka socodkiisu ku socdaa 20 jirka sidiisu u hadlaa xooga 20 jirku leeyahay sida 20 jirku u tallaabsadaa waxa lagu yiri da'daadii waa ta dhaqaaqi leh dhalinyaradii ka yaryaraydo dhan way buusbuuseen way gaboobeen adoo maxaad cuntaa baa laga yiri noo sheeg wuxuu xadiiskaas ku amal falaa buu anigu ilaahay amarkiisa ilaali adigana yaa ku ilaalin ilaahay nicmada araga ilaahay kuma caasin buu yiri ilaahay aragiibu quwadii aragu ilaaliyay buu yiri nicmada maqalka ilaahay kuma caasin ilaahay quwadii maqalku ilaaliyay buu yiri nicmada maaragtaan xoog iyo dhalinyarnimada ilaahay kuma caasin nicmadii dhalinyarnimadii xoogii baa ilaahay ilaaliyay ihfad ilaaha yahfadka ba ku shaqeeyaa buu anigu ilaahay amarkiisa ilaali adigana ilaahay baa ku ilaalin inagana maanta dhalinyaradeenna eega 20 jirkoogii baa buusbuus kasratul macaasi waa macaasida weeyaan amarkaan nidhi xor baan ahay ikhtiyaar baan leeyahay waxaan doonaan eegi waxaan doonaan cuni waxaan doonaan samayn oo yaa ka yidhi xor baa tahay addoon ilaahay baa tahay haddaad xor aad tahay oo xorriyad aad sheeganayso maxaad la gaboobi maxaad la buusbuusi maxaad la bukooni maxaad la dhimani maxaad la walwali maxaad la abaaroobi maxaad la cabsani ninka xorriyad gaadhay waxaasoo dhan waa inuu ka bogsadaa khalaas waa xor la yidhaha ma jirto kullu bini aadan waxaa adduunyada joogoo dhan waa ilaahay addoomihiisii addoonna sifada addoonkuna waa sifadee berigii addoomaha la soo gadan jiray ayaa nin maalqabeena ayaa tegey meesha markaa addoomaha lagu gado markaa buu soo iibsaday meheradiisii buu la yimiday waa addoon buu soo gatay meheradiisii buu la yimiday markaasuu yidhi magacaabaa lagu yidhaha waryaa wuxuu yidhi maanta laga bilaabaa magaca adigu aad ii bixisaa magacii noqonaya buu ka yidhi markaasuu yidhi dharka maxaa jeceshood xidhataa markaasuu yidhi maanta laga bilaabaa dharka adaad ii xidhoon baa dhar ii noqonaya buu yidhi markaasuu yidhi raashinka maxaa jeceshood cuntaa markaasuu yidhi maanta laga bilaabaa raashinka adigu aad isiisoon baa raashin ii noqonaya buu yidhi markaas war balkan eega buu yidhi waxaan weydiiyey baan igu soo celinay war adu maanad ikhtiyaar lahayn buu ka yidhi markaasuu yidhi addoon baan ahay addoon ma ikhtiyaar buu leeyahay buu yidhi hada macna addoonka macnihiisu waa saas addoon wuxuu raba ma eego wuxuu raba kuma hadlo wuxuu raba ma cuno meeshuu raba isma taago suu doona uma socdo walaa tamshi fi lardi maraxa inaka lan takhriqa alarda walan tabluga aljibaala tuula baa ilaahay dhulka markaad socotana kibir iyo khoyaalaha u socon baa ilaahay ku leeyahay dhulkana ma dilaacinaysid buurahana dharar ma gaadhaysid bini aadan xariya kaadila daciifa tahee hay naga buuxa waxa musqusha ka buuxa adaa ka buuxiyey anaa ka buuxiyey hay naga buuxa dadkan soo socdo dhan waa wada bulaacad socota ilaahay baa nasakhray mooyaane waxaan nahay ma jirto waxa qiimo ku leedahay waa ilaahay taacadiisa waa ilaahay macrifadiisa daatadaadu qiimo male sindhaya kaadiya dhiig iyo biyo kaa buuxa waxay bini aadamku ay haystaane maanta ku faanayaan anaa kaa dhaqaalo badan anaa kaa fooq weyn anaa kaa meherad weyn anaa kaa reer badan ma jiro waxaasna wax ku taraya maaha waxaas man baطa'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu baa nebigu yidhi ninka maalinka qiyaamaha camalkiisu uu la hadho uu camalkiisu dib u dhigo reerka uu ka dhashay hore ma u dhigayaan horey ku dhigi maayaan iimaan iyo acmaal baa ilaahay doonaya walaalayaal kun cabdan lilaahi jala wacala 60 sanaad haysataa keliya 60 sana waxaa la doonayaa inaad u noolaato sida addoonka addoon baa tahay